waxaan filayaa su'aalihii kulana waa bilaabanayaan waxaan kaaga mahadnaqayaa marka koowaad inaad qalfoofkii federalismka aad dhamaystirtay waqtigu ka dhacay adigoo aan dhigay dhacaan gelin laba su'aalood baan ku weydiin waa dhinaca dastuurka iyo federaalka waa taabanayaan midda koowaad waxa weeye sharciga la xiriira jinsiyadda Soomaaliga sharcigaas jira koob iyo 60 afti loo qaaday labadii gobol oo markaa midoobay baa u qaaday wuxuu qeexayay in qofka Soomaaliga uu Soomaaliga yahay qof kasta oo dhiigiisu Soomaali yahay abba Soomaaliya leh taas uu qeexayay hadda waxa jira sharci miiska saaran dawladda federaalka aniga ruuxayga aan dib u dhigay doodeeda aan ka mid noqon intaan dawladda farmaajo aan ka mid ahaa taadiina soo bilowday xilligeedii oo hadda doodiisu taagan yahay oo aad controversial oo ah in dib loo qeexo sharcigaasi waxa uu qabo waxaan meesha yaala waxa weeye inuu Soomaali noqdo qofka sida kii hore qofka asalkiisu Soomaali yahay iyo inuu noqdo Soomaali qof ku nool Soomaaliya proper Soomaaliya arrintaas waxa loo adeegsaday markii la dhiibayay xildhibaan ninka la yiraahdo Cabdikariin Qalbi Dhagax oo lagu qeexay inuu san Soomaali ahayn waa loo adeegsaday waxay ku soo aadaysaa xilli labadii gobol oo u midoobay markii hore aftida u qaaday ay kala maqan yihiin Soomaalidu ay kooma ku jirto ay kala qaybsan tahay ma kula tahay sharciga in su'aal la geliyo oo hadda la yiraahdo hebel baa Soomaaliya hebel baan ahayn Soomaali in ay ummadnimada Soomaalida wax u dhimi karto xilliga kana ay ku haboon tahay waa su'aasha labaad waxa weeye way ka sii kulusha waa Muqdisho waxaa jira qodobka 9 ee dastuurka wuxuu sheegayaa in la qeexo maqaamka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho dabcan waxay daba socotaa wixii dhacay 30 sano ka hor waxaa jira oo kale inay Soomaalida wax ku qaybsatay 2000 carta nidaamka aan dastuuriga ahayn laakiin heshiiska ah ee ah 4.5 waxa kale oo jira 2012 in lagu heshiiyay in nidaamkii federaaliga ah la dhiso oo lagu qaybiyo 18 gobol oo 3 sano tar leh oo iyadana sida lagu dhiso oo iyadana gobolka Banaadir ay kamid tahay waxa jira dood cusub oo hadda taagan oo waa dhaweyto si siyaasadeed loo soo tuuray madaxweyne Farmaajo oo soo tuuray 13 sano tar ay ku jirto waxa socota dooda inay gobolka Banaadir noqoto state inay noqoto caasimad maqaamkeedu qeexan yahay inay noqoto labadaba caawa dadka Soomaalida u garnaq reer Muqdisho gartooda si dadka Soomaalida kalena gartooda si sida arintaas loo fordaamiya waa mahadsantahay wasiir Juxa sharciga jinsiyadda 1960 waa run laakiin waxa rabaa wasiirow adiguna wasiiradna ka soo ahayd wasaaradii gacanta ku hayday waanad ka soo shaqaysay sidaad sheegtay aragtidaadan waa sheegtay labada ra'yibo spiritkii kii 60 lagu sameeyay qof kasta oo qowmiyadda Soomaaliya ah waa citizen Soomaali ah iyo maya oo adduunyadu nation hal wadan leh dadkiisuna ay xuduudaha banaanka ku nool yihiin wadamo kale ku nool yihiin waa jira adduunyada Soomaaliya unique ma aha oo inta wadankaas ku nool ay citizen u tahay inta xuduuda banaankeeda ku nool dalka ay ku nool yihiin ay citizen u yihiin waa annaga taas oo wasiirku u sheegay waxayna ku abalay gareysnayd diidmadii aan diidnay xuduudaha isticmaalka xuduudihii isticmaalka ka tagay ma aqoonsanin markaan dhahnay macnaheedu dadka xuduudaas ka xageeyahay waa dadkeennii muxuu ahaa xuduudan isticmaalka u dhigana ma kala bari karta waay waa issue kale ayadana oo maxaan ku raada u baahan muxuu ahaa in laga doodo oo laga waxeeyo dad badan oo Soomaali ah ayaa ku taagan wali oo sidaa qaba dad badan oo Soomaali ana waxay qabaan maya citizenka Soomaaliya waa xuduudda Soomaaliya dadka ku nool laakiin waxay ku dareen dual citizenship afuran asoo Ethiopian oo Soomaali noqon kara asoo maxaan ku raraa Kenyan oo Soomaali noqon kara asoo Djibouti ah Soomaali waa noqon kara soo inaan iska furnaano oo xuduudaheena iska furnaadaan ma argumentigu marka waa taagan yahay aniguna waxaan mar walba raacsanahay qaadanaya kan ay Soomaali isku raacday isla ogolaato Mogadisho xamar maqaamkeeda qolooyinkii maxaa asxaabta ah dastuurka hadda ka shaqeeyay qolooyinka hore ka shaqeeyay proposals ka yaalo bas siyaasiyiinta ayuu kari weyday inay optionska loo develop garay inta fariistaan ay dhageystaan kan aan qaadno on dadka u geyno ka soo iibina inay dhahaan optionsa loo soo sameeyay oo la leeyahay Muqdisho sidaanay noqon kartaa saan dawlad goboleed ay noqon kartaa caasimad dawlad goboleed ku dhex taallay noqon kartaa
walax kale 300 maqar option ee noqon kartaa in dadka siyaasiyiinta ee dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada madaxdooda inta isku yimaadaan waxaan isla fiiriyaan isla qaataan ay yiraahdaan kanaan qaadaynaa aan dadka aan ka soo iibinaynaa hadday ku guuleystaanna kaas dastuurka lagu qoro markii dadku aqbalaadooda la helo haddii lagu guuleysan waayana loo noqdo marka la yiraahdo dadkii waa diideen kana mid kale aan fiirino laakiin hal mid ah meesha taal mas'alada maqaamka muqdisho bas ma ah mas'alada maqaamka muqdisho bas ma ah mas'alada waxa taagan dadka muqdisho doodayo dhahaya annaga representation aan u baahannahay iguma filna reerkaaga muxuu ahay Puntland ay degan yihiin Puntland laga mathalaa in la yiraahdo halkaan aan deganahay halkaan aan mathalaad iyo tala waa go'aan gaaristii halkaan aan rabaa inaan ka taliyo aniga oo maxaa taladeeda aan lahaade meel kale farti aan igu fiiqino xaq ayaan la idin representation siyaasadeed aan u baahanahay dadka muqdisho miiniska representation loo sii karana waa diidaya lacilmikum waxaan rabaa inaan idiin sheego 2016 markii aqalka sare la sameynayay waa marka horta representation ilaa aqalkii golihii shacabka 4.5 ku salaysan yahay muqdisho dadka joogana meel kale kama imaana waa 4.5 ki marka si wax loogu celi waa la wargaran waay aqalka sare sameysmay representation laga sameey midda aad sheegtay 18 gobol oo 3 senator lagu dhuftay waa 54 waa run laakiin meel kale aad jirto dastuurka qodobka loo dhahayo statusku equal representation ay leeyihiin statusku equal representation statusku equal maaha qaarna waa 2 gobol qaarna waa 3 gobol so whatever marka waxaa ka badan constitutionka laftiisa iska hor imaanayo oo u baahan inaan saxno marka taas oo dhan waxa asal ka ah in political understanding laga gaaro madasheeniyaan soo dhax dhignay waa waxyaabahan aad iyo aad uga xumaay waa isla fahmi weyne si xamar ay matalaad u yeelato dadkuna ay u aqbalaan caasimadii waaya la yiriyo waa la wada leeyahay in la wada leeyahayna loo muujiyo aniga proposal aan keenay Puntland iyo Somaliland مثلا 3 senator oo extra ah la si oo aanay lahayn marka loo fiiriyo equal states inay equal noqdaan dadka ku dhagan argumentigoodii laakiin waa ka odayeynay waa la waxeeyay sabsabasho iyo xidxidashada kama maqleen oo Puntland 4.5 kiina laga fufujinayay Somaliland waa maqleedo waa lagu waxeynay 3 senator oo extra ah oo gobolada kale laga soo qaaday la si markaasaa weli madaxweyne cabdiweli yaa joogay aad wuxuu uga cabanayay qaybintoodii inuu dhib ka qabo sidii uu u qaybi lahaa mujtamac iyo qabiil ah iyo kiyo la yiri qabiil kuma saleysna sidii loo qaybi lahaa yani dhibaato badan dadka dhan kulli si waxa laga soo ra'yaan keenay marka aan leeyahay idinkuna extra senators waa u baahantiin muqdishona xalay rabtaa aan qaadano 15 muxuu ahaay senator oo extra ah aan qaadano constitution aan tacdiil ku sameeyno 15 kana aan ka dhigno 5 beelood oo saddex cid walba dhibaatada haysta waxay bas one condition haddaad reer Puntland tihiin dadka reer Puntland ee muqdisho joogaad ka keenaysaaye garow iyo boosaaso iyo qardho iyo gaalkacyo ka keenaysid baydhabo iyo qansax dheere iyo maxaan ku iraahdaa iyo waajid iyo xudurna ka keenaysid dadka jooga reer Puntland ee muqdisho jooga iyo kuwa reer koonfur galbeed iyo kuwa galmudug oo muqdisho jooga laga keenaya muqdisho dad degan oo ku nool yaa laga keenaya saas waxa la yiri dawlad goboleedkii ugu tiro badnaaba 12 xubin haystee sidee loo keenaya war waxaan waa markii calaamad wada lahaanshaha meeshii ay ka bilaabo lahayd oo dadka dham ay fiil garay lahayn in waa leega diiday saaxiibadaydii marka madasha ku jiro waa ku qanci waayay inay sii socotaay marka waxay caqabad ku noqonaysay doorashadii wixii inay sii socdaan iyo aqalkii sare inuu dhismo dib noogu dhigaan dhahna marka waxa Soomaalidu ay dhihi jirtay xaaja haday saas noqoto dib loo dhigaa dhurooba u dhasha ama dhurbeelaha ka dhintee bal dib noogu dhiga muxuu ahay waa isaga imaanayna dib u dhigaas aad badan waa iga soo gaartay maxaan ku raada wax badan ilaa hadda wali qoorta igu jiro nimankii saaxiibada ahay ee iga diidana aan ila wadaagin oo aniga ii gaar waa wataa laakiin that's the reality waa aqbalsanahay waa qaadanaya waan aqbalsanahay eedda under my leadership in ay wixii ay ku hagaagi waayeen laakiin wadada soo martay haddana way taagan tahay xalay wali u baahan tahay muqdisho iyo dadka ku nool waa maasanta horta aniga madaxweynahaygii baa meesha fadhiyo iga aftahansan oo ka daba tagi mahaye su'aal la weydiin mahaye waxaan
tacliiq ka bixinayaa su-aasha ku saabsan sharciga wadaniyadda. waxa dalkan dhibaato ka jirto baahida keentay in sharcigiis jinsiyadda ee raggii dalkan xoreeyey oo inaga wadanisanaa oo naga dal jeclaa ay dejiyeen waxa maanta dalka baahi taalo waxa keenay horta uma arko inay wax niyad wadaag keeni kara ama Soomaali wanaag ugu jiro inuu noqon karo ma qabo horta. laba inaga kaliya ma nihin ummadaha isirka ku saleeya jinsiyadda dhammaan wadamada Yurub say u dhan yihiin jinsiyadba ku salaysan yahay. ninka Irishka ee Mareykanka ku dhashay Ireland hadduu tago subaxa xiga baasaboorku qaadanaya. cudurka ay tahay maxay tahay in la yiraahdo waxay odayaasheenni iyo halgamayaasheenni iyo xorriyadda raggi dhalay dejiyeen oo dhammaystiran markaad akhriso meel aad ka dhalisho lahayn baa maanta lagu mashquulayaa iyadoo la fulin laayay sharciyada qoraa ee yaalla la fulin laayay. aniga maana garanay taas waxaana ku talinayaa madaxweyne xasan iyo raggan kale siyaasadda ku jira in arrintaas si aan mugdi ku jirin albaabkeeda loo xidho sabaahiba looma qabo kuwa ka daran baa qabnay.